kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa saxan production fadlan haday ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqatay channelkan fadlan ha ka iloobin inaad subscribe tirahdid gambalelkana furatid si ay kuu soo gaaraan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada maanta aan kugu hayno waxa ka mid noqon doona ciidamada qaybta 12aad ee xoogga dalka Soomaaliya oo kala dhex galay dagaalo dhawaan ka dhacay deegaanka Bangeele ee gobolka Galgaduud baarlamaanka cusub ee Galmudug oo maanta kulankooda u horeeyay yeeshay ayaa ka shiraya sidii ay u dooran lahaayeen guddiga soo magacaabi doona madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo maxaa Gaalkacyo uu ka wada haatan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug waxa ay ka wada hadleen sidii doorasho xor ay u dhici lahayd qodobadaas iyo wixii kale oo nagu soo kordha intaan ku guda jirno saaxiibayaal ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hadii uu kugu cusub tahay in markii uu horeysay aad soo booqatay channelkan fadlan ha ka iloobin inaad subscribe tirahdid gambalelkana furatid si ay kuu soo gaaraan wararkii u dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 12aad oo hogaaminayo taliyaha qaybta 12aad General Qooche ayaa gaaray deegaanada Bangeele oo dhawaan shaqaaqa ay ka dhacday halkaas iyadoo halkaas ay isku dagaaleen laba maleeshiyaad oo ka soo kala jeeda Caabud Waaqi iyo waliba Cadaado waxaana ujeedka ciidamadan uu yahay sidii ay u kala dhixgali lahaayeen labadaas maleeshiya beeleed waxaana sidoo kale wafdiga taliyaha la socda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo uu kamid yahay xildhibaan Mahad Salaad waxa ayna kulamo la qaadanayaan bulshada ku dhaqan deegaanka Bangeele iyo waliba maleeshiyaadkii halkaasi dirta ku dhaxmartay baarlamaanka cusub ee Galmudug ayaa maanta kulankoodii koowaad ku yeeshay caasimada Galmudug ee Dusmareeb waxa ay kulankooda uu ku wajahan yahay sidii ay iskaga soo dhex dooran lahaayeen guddi soo doorta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo dhawaan la filayo inay ka dhacdo caasimada Galmudug ee Dusmareeb dhawaan ayay ahayd in baarlamaanka cusub ay doorteen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la doorto madaxweynaha cusub ee Galmudug iyo ku-xigeenkiisa qabanqaabadii u dambeysay ayaa haatan ka socota caasimada Galmudug ee Dusmareeb iyadoo wadooyinka waaweyn ee magaalada Dusmareeb lagu arkayo ciidamo fara badan oo sugaya ammaanka caasimada Galmudug ee Dusmareeb wafuud kala duwan ayaa ku soo qulqulaysa caasimada Galmudug ee Dusmareeb si ay uga qayb galaan doorashada madaxweynaha Galmudug madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf waxa uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo isagoo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada Gaalkacyo isla Gaalkacyana waxa ku soo qulqulaya wafuud badan oo ka soo carootay caasimada Galmudug ee Dusmareeb waxa uu sheegay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf in ay Gaalkacyo ka dhacayso doorasho xor ah iyadoo halkaas ay haatan ay ka socoto qabanqaabo kale waxaana Gaalkacyo gudaheeda lagu arkayaa boorar waaweyn oo lagu sharaxay musharaxiin cusub oo isku taagtay xilka madaxweynaha Galmudug ee uu sheegay madaxweyne Axmed Ducaale inay ka dhacayso Gaalkacyana waxa ka socda qabanqaabo kale aad u xoogan musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug ayaa la kulmay gudoomiyaha koowaad ee baarlamaanka Galmudug iyo labadiisa ku-xigeen waxa ay kala shireen sidii doorasho xor ay u dhici lahayd iyadoo musharaxiinta dhawaan ay kulan ay ku yeesheen caasimada Galmudug ay ku sheegeen in loo diiday in ay la kulmaan xildhibaanada baarlamaanka Galmudug si halkaasi loolankooda siyaasadeed ay uga wadaan waxa ay sheegeen in xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug waa sida musharaxiinta ay sheegeen in ay dad kale u shaqeynayaan laakiin dhanka kale isla shalay waxa qaabilay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug waxaana ay ka wada hadleen sidii doorasho xor ay u dhici lahayd iyagoo kulan gaar ah ku yeeshay caasimada waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin la kulanka gudoomiyaha baarlamaanka waxayna baarlamaanka cusub ugu baaqeen in madaxweyne daacada ay doortaan hogaamin karana Galmudug guud ahaan waa naga inta saaxiibayaal warkii aad kala socoteen sax production fadlan hadii kugu cusub tahay daawashadeena subscribe gambalelkana furo waa naga codsi si wararka u dambeeyay ay ku soo gaaraan saaxiib